بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن مالونا أكسن داوديال ومعلومات ثلاثة تاريخنا يتاي صدح ذا بشا مارس سنة لبض كن لحيا لباتنك وافق سن أفريو تبنك بشا رمضان سنة كن أفر بقول أفرتني تضبع هجرية ذا كسو دواذا برامجك وراركم مانتا وان ذيكو قسو قد من دونو wararkii dhacdooyinkii ugu dambeeyay dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobada maanta barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah maalinkii afraad ayuu galay dagaalka u dhaxeeya Iiraan oo dhinac ah iyo isbahaysiga Israa'iil iyo Mareykanka iyadoo weeraro iyo weerar celis ay socdaan warbaahinta Israa'iil ayaa tibinaysa in gantaal wata bambaanooyinka firdha goorna uu ku soo dhacay magaalo ku taal bartamaha Israa'iil iyadoo sidoo kale la soo warinayo weerar kale oo Xisbullah ay ka geysatay waqooyiga Israa'iil Mareykanka iyo Israa'iil oo dhankooda xoojiyay duqeymaha ka dhanka ah Iiraan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan oo cadeeyay in ay og yihiin halka uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Britain oo markab dagaal u diraysa bariga dhexe iyadoo Iiraan maanta si cad ay uga digtay dalalka Yurub inay ciidamo u soo diraan gobolka bariga dhexe Ruushka oo sheegay in duulaanka lagu qaaday Iiraan uu ku riixayo dalkaasi inuu samaysto hub nuclear ah Israa'iil oo isku diyaarinaysa duulaan ka dhan ah dhulka oo ay ku qaado Lubnaan kadib markii Xisbullah ay ku soo biirtay dagaalka dhammaan qodobadan iyo sidoo kale warar kale iyo wixii warar ay degdeg ah soo kordhay intaanu hawada ku jirno ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaynu ku bilaabaynaa Israa'iil halkaas oo daqiiqada ka hor duqeymo culus lala beegsaday warbaahinta Israa'iil ayaa soo tibinaysa in goor dhaweyto qarax laga maqlay magaalo ku taal bartamaha Israa'iil oo lagu magacaabo Batiah Tikva waxaana la sheegayaa in gantaal wata madaxyada firdha uu ku soo dhacay halkaasi dhinaca kale seeriga dignada ka bixiya gantaalada ayaa laga maqlayaa waqooyiga Israa'iil iyo sidoo kale dhanka Haifa telefishinka kanaal 12 ayaa hadda waxa uu tibinayaa war ku saabsan in gantaalkii ku soo dhacay deegaan lagu magacaabo Baniya Barak daqiiqada ka hor ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 5 qof waxaana la sheegayaa deegaankan inuu ku yaalo waqooyiga magaalada Tel Aviv ugu yaraan 3 goobood oo kale oo ku yaal bartamaha Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv weyn ayaa laga soo warinayaa qaraxyo in laga maqlayo war kale oo coladan la xiriira General Yahya Safafi oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ayaa sheegay in ay og yihiin goobta uu ku sugan yahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo shararka goobaha uu ku qabsado faahfaahin dheeraad ah laga bixin waxay ula jeedaan hadalkan isla wararka Iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa uga digtay dalalka Yurub inay ka qayb qaataan ololaha Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka ah Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan iyadoo sheegtay in arrintaasina ay noqon doonto fal dagaal afhayeenka wasaaradda Ismaaciil Baqa ayaa u sheegay wariyaasha waxay noqon doontaa fal dagaal ficil kasta oo noocaasi ah oo ka dhan ah Iiraan waxa loo arki doonaa la shaqaynta gardarrada waxaana loo tixgelin doonaa fal dagaal oo ka dhan ah Iiraan dalalka Jarmalka Faransiiska iyo UK ayaa maalintii Axadda sheegay inay qaadi karaan tallaabo difaac oo u dhiganta si loo burburiyo awoodda ballaaran ee Iiraan ee ridista gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee meelaha laga soo tuuro wararka Iiraan aynu ku sii soconay ciidanka Iiraan ayaa sheegay in ay soo rideen 7 diyuuradood oo Israa'iil ay leedahay oo ah nooca aan duuliyaha lahayn ciidanka ayaa sheegay in ciidamadooda badda sidoo kale ay bartilmaameysteen maraakiibta iyo saldhigyada waxa ay ugu yeereen cadawga ee gobolka iyo gudaha Israa'iil iyagoo adeegsanaya gantaalada dhulka laga rido iyo qaar kale oo markaasi ka mid ah awoodda xagga gantaalada waxay sidoo kale sheegeen in maanta ay soo rideen 7 diyuuradood oo ah nooca Hermes, Heron iyo MQ-9 meelo kala duwan oo ka tirsan Iiraan intaa waxaa dheer waxay sheegeen in gantaalo ku weerareen saldhigga Al Udeyd ee ku yaala waddanka Qatar
waa tahay war kale oo xaaladan la xiriira inkastoo Iiraan ay ka digtay in dalalka Yurub ay dagaalka ka qayb noqdaan haddana saacadihii ugu dambeeyay dowladda Ingiriiska ayaa shaacisay inay u dirayso markab dagaal si uu difaaco saldhigga Akrotiri ee ku yaala jasiiradda Qubrus kadib markii shalay lagu bartilmaameedsaday diyaarado aan duuliye lahayn sida lagu sheegay warbixin uu daabacay wargeyska The Times. Warsidaha The Times oo soo xiganaya 3 ilo ayaa sheegay in wasiirka difaaca Britain John Healey uu shalay kulan la yeeshay saraakiil sare oo military halkaasi oo ay kaga wada hadleen dirista markabka ee gobolka. Faransiiska ayaa sidoo kale qorsheynaya inuu u diro Qubrus nidaamyo ka hortaga gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kadib weerarada Iiraan sida lagu sheegay war hore oo warbaahinta jasiiradda Qubrus ay baahisay. isla arrimahani wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka digay in weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan ay ku riixi karaan Dhahraan iyo dariskeeda in ay raadiyaan helitaanka hub nuclear. Wuxuu sheegay in colaadda sii fidaysa ay korinayso khatarta faafitaanka hubka nuclearka. Lavrov ayaa sheegay inuusan weli arag wax caddayn ah oo muujinaya in Iiraan ay horumarinayso hub nuclear, taasi oo ahayd sababta ugu weyn ee dagaalka. Haddii aysan ahayn buu yiri sababo kale oo dagaalkan loo bilaabay. aynu dib ugu laabanay ee wararka xagga Iiraan. Ururka bisha cas ee Iiraan ayaa sheegay in ka badan 780 qof ay ku dhinteen guud ahaan dalka tan iyo markii Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen duqeymaha Iiraan ka dhanka ah. Qaraxyo waaweyn ayaa saaka laga maqlay magaalada Tehran sida ay sheegtay wakaalada wararka ee AFP, halka warbaahinta Iiraan ay soo warisay qaraxyo ka dhacay Karaj oo galbeedka caasimadda ah iyo magaalada Isfahan ee bartamaha dalka ah. xagga Israa'iil haddaynu mar kale qoraansanno raadiyaha ciidamada Israa'iil ayaa wariyay in tiro ka mid ah hogaamiyaasha Xisbullah lagu weeraray duleedka koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda Lebanon, iyadoo intaa lagu daray in duqeyntaasi halkaasi ay ka dhacday ay beegsatay kulan ay lahaayeen sida hadalka loo yiri hogaamiyaasha Xisbullah. Warbaahinta maxalliga ah ayaa sidoo kale waxay warinaysaa in 8 gantaal laga soo riday koonfurta Lebanon kuwaasi oo ku wajahna waqooyiga Israa'iil, waxaana ay tilmaameen in 2 gantaal lagu riday xarunta Israa'iil ee Samakha ee ku taal buuraha la haysta ee Kafar Shuba ee koonfurta Lebanon. war kale oo colaada gobolka bariga dhexe la xiriira kadib go'aankii shirkadda shidaalka ee Qatar Energy ee ahaa in la joojiyo wax soo saarka gaaska dabiiciga ah iyo badeecooyinka la xiriira. Qatar Energy waxay joojinaysaa wax soo saarka qaar ka mid ah agabka kiimikada ee warshadaha loo adeegsado. arrintan ayaana timid kadib markii 2 ka mid ah xarumaheeda lagu bartilmaameedsaday waqooyiga Qatar horaantii toddobaadka. wahagaag bal hadda aynu eegno wararka ugu dambeeya ee soo kordhaya. qaraxii gordhaweyta ka dhacay deegaanka la yiraahdo Bani Barak ee Tel Aviv ayaa telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay wuxuu sheegayaa inay sii kordhayaan qasaaraha ka dhashay weerarkaasi, iyadoo ilaa iyo 7 qof la sheegayo in haatan dhaawacooda uu sii marayo. dhinaca kale war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lebanon ayaa lagu xaqiijiyay in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen, halka 246 qof ay ku dhinteen tan iyo maalintii Isniintii duqeymaha Israa'iil ay wado. war sidoo kale ka soo baxay dhanka Iiraan haddii aynu eegno, ciidamada Iiraan ayaa sheegaya inaysan waxba ka jirin wararka sheegaya in ay weerareen waddanka Cumaan goordhaweyt halkaasi oo la sheegay in diyaarad daroon ah ay ku dhacday. General Rahim Safafi oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa isna waxa uu sheegayaa in ay wadaan weerar culus, waxaana markaasi uu sheegay in ay beegsanayaan saldhigyada militariga ee cadowga sida uu yiri iyo sidoo kale ciidamadooda. waxaana uu sheegay dagaalkan in uu dhaafi karo qiyaasaha sida hadalku yiri cadowgu ay wadaan. arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo dagaalku muuqanayo in uu sii xoogeysanayo. dhanka Israa'iilna waxaa goordhaweyta lagu xiray wariye ka tirsan telefishinka CNN qaybta Turkiga. waxaa la sheegay wariyahaasi in ciidamada Israa'iil ay xireen isagoo muuqaal ka duubayay warbixinna ka timinayay goobo la soo weeraray. Israa'iil ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku amartay saxaafadda iyo dadkaba inaan sawirro laga qaadin goobaha la duqeeyay. arrintaas waxaa la sheegayaa inay sabab u tahay inaan inta badan lagu ogaan karin qasaaraha dhacaya marka laga tago wararka warbaahinta Israa'iil loo gudusinaya ee ah
weerarada ugu dambeeya ee socda waxay ku soo kordha arrimahana barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii aan la idmo waa hagaag daawadayaal goordha waxaan u gudbaynaa xubinta falanqaynta ee barnaamijka oo aan nolida wax ka weydiin doono dagaalkan oo galay maalintiisii afraad waxyaabaha kasoo kordhay iyo sida xaalku yahay balse markan waxaan u gudbaynaa warbixin ku saabsan madhaba in jawaabta Iiraan ay ka badan tahay filashooyinkii la filayay islamarkaana Mareykanku uu wajihi doono qalalaasi badan warbixin ku aadan amurahan waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh natiijooyinka weerarada Iiraan ku qaaday saldhigyada militariga Mareykanka ee gobolka waxay ka turjubayaan qalad xisaabeed oo halis ah sidaasi waxaa sheegay Scott Ritter oo ah sargaal hore uga tirsanaa sirdoonka Mareykanka Ritter waxa uu sheegay in ololaha militari ee Mareykanka iyo Israa'iil uu fashilmay dhab ahaantii sababtoo ah buu yiri waxa uu kali ah uu dilay hogaamiyaha sare Cali Khamenei iyo kuwa kale oo ay ku jiraan gabadhiisa yar ee uu ahaa balse ma uusan ridin nidaamka sida Trump uu doonayay Scott Ritter waxa uu intaas ku daray in Iiraaniyiintu xitaa ay ku dhawaaqeen borordiiq loo sameeyo hogaamiyahooda sare waxaana ay dalbadeen in loo aargudo halkii ay ka afgambin lahaayeen nidaamka sida Ameerikaanku hiigsanayso sidoo kale waxa uu sheegay in weeraradu aysan soo afjarnin barnaamijka gantaalada Iiraan balse taa bedelkeedii ay duqeyn ay ku hayso Israa'iil qaar ka mid ahna dalalka Carabta iyo xarumo dhaqaale taasi oo keentay saameyn burbur leh oo ku saabsan fikradaha ah in Mareykanku ilaalin karo xulafadiisa gaar ahaan dalalka Khaliijka si loo dheereeyo dagaalka Trump waxa uu baahnaan doonaa in uu abaabulo awood militari oo dheeraad ah iyada oo taliyaasha militarigu uga digeen ka hor dagaalka in si socoshadiisu ay ka dhigan tahay in sahayda qalabka militari ee Mareykanka ee gobolka ay ku dhamaan doonto sida uu sheegay sargaalkii hore ee Mareykanka Ritter waxa uu saadaaliyay in Iiraaniyiintu ay ka soo kaban doonaan weerarka halka Mareykanku qalabkiisa dagaalka uu ku dhamaan doono waxaana uu sheegay in dalalka Khaliijka ay dib u xisaabin doonaan ee ku tiirsanaantooda Washington ee amnigooda isaga oo filaya in go'aano waaweyn la qaadan doono maalmaha soo socda xogayaha guud ee golaha amniga qaranka sare ee Iiraan Ali Larijani waxa uu sheegay in dalkiisu uu si ka duwan Mareykanka u diyaar yahay dagaal muddo dheer socda waxaan ka dhigi doonaa cadawgeena in ay ka qoomameeyaan qaladaadkooda xisaabeed ayaa uu yiri kadib qoraal uu ku daabacay barta X isagoo ka jawaabaya weerarada Mareykanka iyo Israa'iil ku qaadeen Iiraan dhinaca Mareykanka Trump waxa uu ku hanjabay inuu si adag u weerari doono Iiraan isaga oo sheegay waa sidoo hadalka u dhigay mowjad weyn oo weerar in aysan wali dhicin balse dhawaan ay imaan doonto waxa uu sheegay in uusan meesha ka saari doonin ciidamo loo diro Iiraan وatahay aad buu mahadsan yahay Maxamed oo inoo soo koobayay warbixintaasi Mawlid aynu si ambaqaadna qaybta falanqaynta ee barnaamijka bal dagaalkan marka loo eego ee dulqaadashadiisa dhinacyada ku lugta leh yaa ugu badan ama ugu dulqaad badan shacab ahaan ciidan ahaan xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale awoodaha difaaca nimca marka laga hadlayo horta shicibka waxa la oran karaa toos wuxuu u saameynayaa dagaalku waa shacabka Iiraan iyo Israa'iil iyo wadamada kale ee gobolka ku yaala shacabka Mareykanka inta badan toos u saameyn maayo laakiin si dadban ay u saameynayaan gaar ahaan dhanka sicirka batroolka iyo dhaqaalaha iyo sidoo kale diyaaradihii tagi jiray ama si kala gooshi jiray gobolka iyo Mareykanka dhinacaas marka waa xagga saameynta sida ay u kala adag tahay laakiin saameynta tooska dhinacyada ay saameynayso haddii aynu dul istaagno dhanka Iiraan aynu ka bilowno waddankan Iiraan la yiraahdo ilaa iyo muddo 40 sano horta wuxuu ku soo jiray dagaal cunaqabatayn cadaadis siyaasadeed dilal siyaasadeed xasarad iyo isbedelo waaweyn ha noqoto mar dawladda mucaarad lagu yahay oo ay dhacaan mudaharaadyo waaweyn kooxo hubaysan oo mararka qaarkood waddanka dagaal ka geysta waxaan la soconaa dhowr gobol inay jiraan kooxa ama sunniyiinta ha noqdeen ama kurdiyiinta ha noqdeen ama Iiraaniyiinta kale ee ka soo horjeeda nidaamka kacankan islaamiga ah oo dagaal soo waday marka waa dad horta dagaalka u soo joogay 1979 markii uu curtay kacankan islaamiga iminka Iiraan ka taliya isla hal sano gudahood dagaal ayay la galeen Iiraaniyiintu Ciraaq dagaalku wuxuu socday muddo 8 sano ah sida maanta dagaalku yahay oo kale ayay u yar eg tahay dagaalka Ciraaq baa ku lug lahayd laakiin dhammaan wadamada Carabta oo idil waxay taageerayeen Ciraaq
maraykanka iyo dalka reer galbeedka ciraaq bay taageerayeen si meesha looga saaro nidaamkan kacaanka islaamiga wadanka marka isagoo curdun ah oo ka soo gudbay boqortooyo haddana nidaam cusub uu yimid ayaa dagaalkaasi u socday wayna iska caabiyeen iiraaniyiintu dagaalkaasi kadibna waxaa dhacay cunaqabatayntii oo wadanka muddo saarnayd wadankan hadda la sheegayo Iiraan wax soo saarkiisa sanadkii la soo dhaafay 60 bilyan kama badnayn meesha maraykanka laga hadlayo dhowr trilyan laga hadlayo saameynta marka dadkan Iiraaniyiinta waa dad waxaan u soo joogay oo waxa la yiraahdaa dulqaad bay u leeyihiin sida qobarada hadalka ay u dhigayso haddii ay noqon lahayd culayska iyo dagaalka calaamadahaasi waa la arkay saacadii ugu dambeeyay magaalada la yiraahdo Minaab oo maalintii Sabtida markii weerarku u dhacay goob iskuul gabdhaha wax ku bartaan ah la duqeeyay oo in ka badan 100 gabdhood halkaasi lagu dilay maanta waxa ka dhacday arrin la yaab leh intaana sharxin muuqaalkan aynu yar daawana marka hore waxaa iskugu soo baxay goob ka mid ah magaalada ama faras magaalaha oo lagu maamuusayay gabdhihii ku dhintay halkaasi tacsina loogu diray loona borordiiqayay 100,000 oo qof arrinta marka waxay noqotay arrin la yaab ah wadankii oo dagaal ku jira oo la duqeynayo min galbeed bartamaha koonfurta dhinac kasta la duqeynayo ayaa dadkan halkan soo istaageen ma ahan oo kaliya in borordiiqda la sameeyo fariin siyaasadeed ba arrintan diraysa oo ah dulqaadka dadkan waanu imaan doonaa Israa'iil iyo bulshada Israa'iiliyiinta dulqaadkooda laakiin aynu barbar dhigno sawirkan iminka ka soo baxaya dhanka Israa'iil oo ah goobaha gabaadka dadku ay kaga galaan gantaalada waad arkaysaa dadna waxay ku jiraan dhulka hoostiisa ganacsigii baa joogsaday gabi ahaanba isu socodkii baa joogsaday wadooyinka waa haawanayaan dadka waxaa lagu qasbay in ay galaan godadka dhulka hoostooda dadna bannaankay taagan yihiin xalay ilaa iyo saaka waxaynu ka sheekaynaynay magaalada Tehraan shalay galab madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hadlay wuxuu yiri dadka Iiraaniyiinta guryahooda ha joogaan sababo dagaalka la xiriira laakiin isla markiiba ka jawaabeen xalay magaalada Tehraan ilaa iyo magaalooyinkan xitaa duqeynta ay ka socoto Shiraz oo kale 100,000 oo qof ayaa isku soo baxay fariin bay dirayeen magaalada Tehraan gawaari baa calamada la soo suray magaalada gees kasta wareegayay halkaas marka waxa ka muuqata adkaysiga bulsho dabcan dhinac marka laga eego waa qiyamka bulshada oo dadkan waxay aaminsan yihiin ama dadka muslimiinta ay aaminsan yihiin qadarta Eebbe oo ah wax walba inay ku yimaadaan qadarta Eebbe dulqaadkaas marka dhacay wuxuu muujinayaa si kastoo la iskugu dayay in la niyad jabiyo in aan la niyad jabin arrinta kale oo muhiimka waxay tahay dagaalka maanta waad xustay inuu marayo maalintii afaraad waxaa la islahaa haddii la dilay hogaamiyihii sare wasiirkii gaashaandhigga taliyaashii ciidamada xarumihii la weeraray idaacaddii goordhowta la weeraray ciidamadu si fudud isku dhiibi doonaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump waynu maqlayna isagoo leh ciidanka hubka ha dhigeen laakiin waxaynu aragnaa arrin kale oo yaab leh oo ah dagaalkan yaa wada yaa abaabulkan wada yaa isku xirkan wada yaa duqeynta wada qobaradii oo dhan baa ka hadlaysa waxa leeyahay marka arrinta waa arrin ka weyn niyad jab ka weyn ma jiro ayatullahi cali khamenei ma ahayn oo kaliya hogaamiye maamulayay saddexda hay-adood ee wadanka Iiraan laakiin magac kale uu watay oo ah hogaamiyaha ruuxiga ah shiicada joogta China joogta iyo kan America jooga iyo kan Pakistan jooga iyo kan Syria jooga intuba waxay aaminsan yihiin waa si hadalka u dhigayaan shiicadu in hogaamiyaha ruuxiga uu ahaa nin sugayay fariinta mahdiga siday aaminsan yihiin mahdigii baa soo digaya hogaamiyaha ruuxiga ah ayaa xukunka ku wareejinaya dabcan heerkaas ayuu ka joogay isaga markii la dilay borordiiqda way socotaa laakiin ma dhicin in la niyad jabo la isdhiibo waynu arkaynaa marka waxa socda dhankaas marka waa dhanka Iiraan Israa'iil marka aynu u imaanayo waxa ka socda Israa'iil horta bulshada Israa'iil dagaal waxay ku soo jirtay ilaa ay markii la aasaasay iyaga qudooda adkaysi u leeyihiin dagaalka laakiin adkaysiga kala duwan Iiraan ma aynan ka maqal ciidan baa isdilay qof baa isdilay laakiin warbixinadii ugu dambeeyay dagaalkii Gaza iyo dagaalkii kale oo Iiraan lala galay waxaynu ka warhaynay askar fara badan oo isdishay sanadkii la soo dhaafay ee 2025 waxaynu ogeen ku dhawaad 30 askari oo isdishay
oo askar dagaalamaysa ah 2024 sidaas kale askar baa isdishay warbixinada laga helay hay'adaha caafimaadka waxay sheegeen in dad aad u fara badan oo Israa'iiliyiin ah oo kumaan kun ah ay qaataan daawooyinka xagga dhimarka sababo dagaalka la xiriira dad dhibaatooyin ay la soo dirsan xagga maskaxda ah oo daawooyin qaata ha noqoto tii hurdada cabsi la'aanta waxaasoo dhan waa saameynta kale waxa weeyaan dadkii waxay ku hesheen dhulka hoostiisa dad bannaankay joogaan gawaari bay wataan xitaa meelaha qaarkood ganacsigii baa furan way bannaan baxayaan qof bannaan baxaya qof cabsanaya ma ahan laakiin bulshada Israa'iil waxaynu aragnay dad dhulka hoostiisa ku jira wasiirka iraahdo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Ismaaciil Baqaa'i maanta shir jiraad wuxuu ku qabtay iskuul la duqeeyay ayuu saxaafadda kula hadlay ma dhici karto in la arko madaxda Israa'iiliyiinta oo sidaas oo kale bannaanka inta u yimaadaan shir jiraad qabanaya waxa kaloo saameynta keeni kara isku xirkii bulshada iyo dulqaadka dadka Iiraaniyiinta waxay moodaa inay kaga dulqaad badan yihiin Israa'iiliyiinta markay timaado xagga isku xirka bulshada Israa'iiliyiinta waa bulsho kala duwan xitaa marka la eego mabda'a dagaalka waa loo kala duwan yahay oo qolyana waa cilmaani qolyana qolyo diinta ku adag qolyahaas kale dagaal ina galaan ma rabaan dagaalna ku jira ma rabaan xitaa ma doonaya in la dhiso dawlad la yiraahdo Israa'iil baa iskale waxay aaminsan yihiin qolyahaasi qaar ka mid ah in dhulkan uu yahay dhul Falastiiniintu ay leeyihiin oo ay tahay in loo baneeyo haddii ay dawlad yeeshaanna aakhir zamaankii la joogo ama adduunyada ay gudoomaysa qaar baa sidaas aaminsan marka xitaa waxa loo kala duwan yahay fikirka arrinta marka waxa moodaa xagga dulqaadka in Iiraaniyiintu dagaalka ku dulqaad badan yihiin Mareykanka dulqaad badan oo hadda saameyn badan dagaalka u yeelan maayo laakiin su'aalo badan baa durbaba ka dhashay gaar ahaan askarta Mareykanka waxaan arkay goor dhaweyto dad khubaro ah oo Mareykan ah oo leh dagaalku wuxuu socdaa 4 maalmood durbaba 6 askari oo Mareykan la xaqiijiyay inay dhinteen laakiin Israa'iil askar ma hayna dhimatay inkastoo Israa'iiliyiinta xitaa dadka shicibka ah ciidamada ay ka mid yihiin laakiin ilaa hadda waxa la hayaa dhowr iyo 10 Israa'iiliyiin inay dhinteen ciidan laakiin lama xaqiijin marka waxay ka wadaan maxaan ku dhimanaynaa askartayda ugu dhimanaysaa dagaalka nima waa hagaag bal xagga dulqaadka aynu ka talaabno waxaa la sheegayaa in Iiraan ay la soo baxday xeelado dagaal oo aad cajiib u ah wax nooga sheeg Mawlid xeeladahaas ay Iiraan la soo baxday waxa ay yihiin dabcan qobarada militariga arrintan waxay ku tilmaamayaan inay tahay dagaalka inuu daba dheeraanayo Ari Larajani xarig uu sheegay wuxuu yiri waxaan u diyaar garoonaa dagaalka inuu daba dheeraado Iiraaniyiintu marka waxay bilaabeen 24 saac la soo dhaafay inay beeqaamiyaan gantaalada iyo diyaaradaha droniska ay adeegsanayaan gaar ahaan Israa'iil horta dagaalka in Xisbullah ay ku soo beertay waxbuu ka caawiyay oo wuxuu ka caawiyay dhankan waqooyiga in aad lagu mashquulo saldhigyo waaweyn baa ku yaala gaar ahaan saldhigga leerada Meron saldhiggaasi waa saldhigga laga maamulo diyaaradaha droniska waxa kaloo ku yaala oo Xisbullah ay duqeysay maanta saldhigga leerada Ramad David waa saldhig diyaaradaha dagaalka ay ka kacaan inta badan diyaaradaha duqeeyo weeye Lebanon saldhiggaasna marka la duqeeyay iyo waqooyiga culays baa ka soo kordhay 1,000 qoys ayaa isla maanta qaxay halkaas marka waxaad moodaa inay tahay arrin in Xisbullah dagaalka ku soo beertay saameyn ay ku yeelanayso Iiraan inkastoo saameyn ka weyn ay ku yeelanayso dhanka dadka reer Lebanon oo waxaynu arkaynaa dawladda Lebanon oo leh waxaan mamnuucnay gebi ahaanba hawlaha military ee ururka Xisbullah oo hadda ay u muuqanayso in suurtagal ay tahay dawladda Lebanon inay toos isku farasaaraan Xisbullah inkastoo laga digayo dagaal sokeeye inuu ka dhaco waddanka Lebanon marka waxaa moodaa taas inay u sahashay dagaalkii joogtada ahaa iyo culayskii lagu hayay Israa'iil oo Iiraan ka imaanayay in dhanka Iiraan hadda ay qafiifinayso oo ay tahay inay culayska u deynayso Xisbullah inay duqeynayso Israa'iil arrinta kale muhiimka waxay tahay oo khubarada ay ka hadlaysaa oo xeelada ah Iiraan hadda waxay bilowday inay rido Israa'iil marka laga hadlayo weeye 3-4-5 gantaal meeshii ay ka ridaysay 20-30-40 sababta dagaalka waa daba dheeraan kara madaxweynaha Mareykanka quddiisa wuxuu leeyahay 4 toddobaad baynu u haysanay laakiin dagaalku inuu daba dheeraado ayaa laga yaabaa taas marka keenaysa isbedelka ku yimid istiraatiijiyadda xeeladaas marka waa xeelada beeqaaminta arrin kale waxa jirta cajiib ah oo laga hadlay Iiraaniyiintu waa dad itixaan ah waxay isticmaaleen nidaamyo difaac iyo gantaalaha meelaha laga rido oo fake ah ama been abuur ah diyaaradihii Mareykanka iyo diyaaradihii Israa'iil waxay duqeynayaan
gawaari laga dhigay in gantaal ku rikaban yihiin iyo meelo difaac laakiin waxa la sheegay ilaa 3,000 oo waxyaalahaas been abuurka ah in loo dhigay laakiin gantaaladii kale iyo nidaamyada difaaca kale meelo kale la dhigtay maxay ugu tala galeen in lagu duqeeyo inay ka dhabaadaan gantaalada Iiraan waxaan u jeedaa gantaalada Israa'iil iyo Mareykanku ay isticmaalayaan in laga dhameeyo waayo markaad 3,000 oo baabuur been abuur ama fake ah aad duqeyso kuwii dhabta ahaa ayaa haddana dagaalka gelaya xeeladaas marka waxay noqotay xeelad saacadihii la soo dhaafay laga warhayo oo ah in Iiraan ay isticmaalayso khibrada sheegayso dhinaca kale Mawlid waxaa lagu soo waramayaa inay soo tarayaan warar sheegaya baaqi sidoo kale cabasho ka soo yeeraysa dalalka Carabta madaxdooda maxay yihiin arrimahaasi horta arrintan waxay noqotay arrin la yaab leh wadamadan khaliijka waxaynu la soconaa sanad ka hor waa bishii May madaxweynaha Mareykanka Donald Trump heshiisyada la galay waxa kamid ah heshiisyo iskaashi dhanka difaaca ah Sacuudiga 1 trilyan buu la galay Qatar waxay la gashay heshiis Mareykanka Donald Trump shakhsiyan 1.2 trilyan Imaaraadku 1.4 trilyan laakiin maanta Mareykanku xooggiisa wuxuu isugu geeyay difaaca Israa'iil marka laga tago nidaamyada difaaca Patriot iyo THAAD oo la geeyay markabka diyaaradaha dagaalka xambaara ee ugu weyn adduunka ee leeyahay Gerald Ford wuxuu yaalaa xeebaha Mediterranean-ka wuxuu difaacaya waa Israa'iil marka wadamadan khaliijka oo Iiraanna u dhow oo aan u baahnayn gantaalada ridada dheer oo u baahan kaliya gantaalada masaafada gaaban iyo diyaaradaha drone-iska ah waxay aaminsan yihiin maanta waaga ku bariyay oo ah in Mareykanka uu ka doorbidayo Israa'iil una ka jecel yahay Israa'iil uu difaacayo awoodiisa isku geeyay Israa'iil ayaga laakiin bayraha ay ku sugan yihiin waana sababta keenaysa 8,000 oo qof wadanka Qatar oo kaliya ayay ku xayiriyeen garoomadiisa Dubai waa garoonka ugu mashquulka badan adduunka 10,000 oo qof ayaa ku xayiran Bahrain iyo Kuwait dadku waa yaaban yihiin waliba Bahrain arrinta la yaab kale waxay tahay dad badan oo Shiica ah ku nool Shiicadii ba taageeraysa wadankoodii la duqeynaya waxay leeyihiin Iiraan sii wada dagaalka arrinta marka waxay noqotay arrin dib u keeni karta mustaqbalka wadamada inay ka fakaraan iskaashiga Mareykanka ay leeyihiin dagaalkan marka hadii ay noqon lahayd istiraatiijiyad hadii ay noqon lahayd sumcad hadii ay noqon lahayd awood intaba Mareykanka waa la tijaabiyay maxaa yeelay wadamadan hadda waxay leeyihiin maxaan lacag ugu bixinaa Mareykanka maxay tahay sababta saldhigadan Mareykanka ugu yaalaan gobolkan hadii aan la difaaci karin Imaaraadka Carabta wuxuu la hadlay Talyaaniga oo yiri kaala naga ilaaliya gantaaladan iyo diyaaradaha drone-iska ah wasiirka gaashaaniga Talyaaniga uu ka jawaabay waa difaaci doonaa buu yiri Faransiiska la hadlay waxa la yiri kaan laga qabta gantaaladan iyo diyaaradaha drone-iska ah Qatar waxay sheegtay 4 maalmood oo kaliya inay isdifaaci karto maalinta shanaad ma difaaci karnay tiri xarumaha shidaalka iyo saldhigyada iyo goobaha muhiimka ah waxa yeelay gantaalada waa ka dhamaaday Iiraan waxay isticmaalaysaa diyaarado drone-isa oo 50,000 ku fadhiya ay soo ridaysaa gantaalada lagu difaacayana kan ugu yar 1 milyan ayuu ku fadhiyaa taa marka waxay noqotay arrin saameyn leh arrinta baaqa iyo cabashada baaqa waxaa soo baxaya warar la sheegaya in amiirka Qatar iyo madaxweynaha Imaaraadka Carabta iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga arrinta arrin la yaab leh weey inay la hadlayaan madaxda reer Yurub ra'iisul wasaaraha Jarmalka madaxweynaha Faransiiska iyo ra'iisul wasaaraha Britain oo leeyihiin dagaalkan hal la joojiyo ma ahan Iiraan hal isugu tago oo Iiraan hal la xakameeyo dagaalka in la joojiyo arrinta marka la yaab kale waxay ahayd khibrada isweydiinaysa intay la hadlayaan madaxda reer Yurub Trump ay la hadlaan su'aal marka ka dhalatay halkaas waxay leeyahay Trump miyuusan waxba ka maqlayn mise telefoonkiisa ka qabanayeen nimankan maxaa yeelay waxa muuqata inay leeyihiin annaga heshiiskan sidaan ma ahayn wadamada iyada halis bay ku jiraan gaaskii waa joogsaday Sacuudiga hadda waxaa la sheegay inuu ka fakarayo dhuumaha shidaalka inuu u wareejiyo dhanka badda cas kadib markii gacanka Hormuus la xiray Iiraaniyiintu maanta waxay ku hanjabeen in xitaa dhuumaha shidaalka ay burburin doonaan maraakiibtii way xayiran tahay intaas oo markab ayaa ku xayiran halkaasi Qatar waynu arkaynaa sicirkii shidaalka waynu arkaynaa bulshadii shacabkii caadiga ah waa xilli Ramadaan baa la joogaa waa xilligii la cibaadeysan lahaa dagaal baa lagu bilaabay marka waxa muuqanaysa dagaalkan xitaa haddii uu dhamaado ama Iiraan ha guulaysato ama Iiraan ha la jibiyo Carabtu inay dareemi doonaan waagi inuu ku bariyay meel cidlaan ay fadhiyaan waa gartay Mawlid gabagabadii aan soo gaarnay dagaalkan waxa uu galay maalintiisa afraad oo uu soconayo
haddaba maxaa saameyn ah oo caalamka ilaa iyo hadda uu ku yeeshay ama la filayaa oo mustaqbalka soo wajahan inuu ku yeesho horta hadda saameynta la arkaa waxaan aragnaa shidaalkii oo kordhay qiimaha fuustada shidaalka hadda waxay ku dhowdahay $81 meeshii ay ka ahayd dhowr iyo 70 ama 74 Yurub oo kale qiimaha shidaalka boqolkiiba 50 buu kordhay waxaa laga dareemi doonaa guryaha waxaa laga dareemi doonaa xafiisyada waxaa laga dareemi doonaa suuqyada waana meelaha ugu daran Mareykanka laftigiisa doorasho ka soo socota bisha November waa doorashada xilli dhexe haddii waxay qubarada saadalinayaan xisbiga dimuqraadiga uu ku guulaysta labada aqal ee Kongareeska iyo Senadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump madaxweyne ma sii ahaan doono 2027 iyadoo ay u dhiman tahay sanad ayaa waxa suurtagal ah in lagu sameeyo xilka xayuubin way iman kartaa arintaasi arinta kale la yaab kale waxay tahay oo dagaalkana toos u saameynaya Shiinaha Mareykanku waa og yahay Shiinaha inuu adduunka hadda ku haysto tiknoolajiyad waxaa la arkayaa marka hadda haddii Iiraan ay dhacdo in laga guulaysto cidda ugu daran ee dagaalku saameynaya waa Shiinaha waxaa kaloo iman karta arrin kale oo la yaab leh oo qubaradu waxay leeyihiin ma aha dhankan in laga eegayo taban dhanka togan haddaan ka eegno adduunyada waxaa imaan karta ileen waxaa la dilay hogaamiye wadan ma ahan oo keliya inuu dadka shiicada u barakaysnaa cali khamenei laakiin wuxuu ahaa ama ay u aaminsanaayeen hogaamintiisa waxay doonaan ha aaminsanaadeen laakiin wuxuu dhalin doonaa baa leeyahay maxaa diidayaa yiri Putin uu og yahay baa meeshuu joogo Zelensky hadduu ku dhufto gantaal xafiiskiisa oo uu dilo maxaa dhici kara yaa isweydiinaya waxa kaloo leeyahay Shiinaha haddii uu dilo hogaamiyaha Taiwan maxaa diidaya wadan kale oo wadamada caalamka ishaya haddii wadan intuu ku duulo wadanka madaxweynihiisa uu dilo ama hogaamiyihiisa uu dilo maxaa diidaya macnaha waxaa loola jeedaa adduunyada qaanuunkeedii Mareykanku uu ka shaqeeyay dhismaheeda oo ay ka mid tahay qaramada midoobay lama oga meel ay ku dambeynayso marka wax walba waxa la leeyahay dagaalkan wuxuu furay xad lamana oga xitaa madaxweynaha Mareykanku ma oga natiijada ka soo bixi doonta dagaalkan wax walba waxay noqdeen wax isbedelay وهاجاجد بعض ما سنتها مولد أوضيعشون واي ما تسيهين قدها ما حنتلسي كويك برنامج كي ورركب مانتا وهالكن سوى الجراه مولد حاجة عبدين معتم عددين كلا سعوديين سادو إيش ورركب برنامج دي معلومات كأنه هالكن كسو قد بينه هدي أتكون عصبت هاي برهن بالشدة كلا دون أما بعضهم هرو وحرنين هذا كسو بير تانيين ترجبوا كل مدونو برنامج متكن لعينه احنا نديكي تجينا سداسيو أمانة الله